guushu waa xarfo ama eray afkan ku fudud sida loo yiraahdana aad u sahlan balse waxa loo baahan yahay in la garto micnuhu erayadaas guul micnihiisu in la ogaado micnuhu guushu waa inaad tahay qof aanan dareemaynin wax cabsi ah haddaad cabsanaysid ee cabsi kugu jirto wili ugu wadadii guushu ma haysid guul waxaad ku gaari kartaa inaad iska saartid cabsida dhammaanteenuba waxaan doonaynaa inaan guul ka gaarno noloshan maanta aan ku noolnahay isku daygu waa shay aad u qurux badan shay walba oo isku daydid ayaa kaa dhigayso qof wadada guusha haya bal haddaad tahay qof aan isku day aan lahayn aan isku day aan suubinayn xitaa haddaad doontid isku dayga aad sameynaysid ku fashilan yani guuldaro ka gaar bal muhiimadu waxay tahay isku dayga aad sameynaysid waxaad ka wanaagsan tahay qof bilaa isku day la'aan ah oo waxba isku day aan suubi karin noloshu aad bay u adag tahay balse waxay u baahan tahay qof adeegaas noloshu ay adag tahay wajaha shayga aad cabsida ku dareemaysid waxaad ogaataa shaygaas inuu yahay shayga kaliya aad ku guuleysan kartid noloshu markaad rabtid inaad heer ka gaartid mise guul aad gaartid inta badan waxaa la kulmaysaa cabsi badan cabsidu waa caadi noloshu caadi ay ka tahay qof waliba uu dareemaa cabsi bal cabsidaasi waxaa la doonayaa inaad adoo sidaas cabsida u dareemaysid inaad hor u socotid run ahaantii hor u socodkaas ayaa kaa dhigi karo inaad guuleysatid dib hadda usoo noqotidna waxay kaa dhigi kartaa inaad meeshaa taagnaatid aad weligaaga aada dhaqaaqin biyuhu sidoodaba hadday meel un iskaga jiraan ama meel yar god mise meel war ah biyuhu iskaga dhex jiraan inta badan waad aragtaa biyuhu aad iyo u uraan misana yacni way qurmayaan oo way shiiraan sidaas oo kale adna waxaad noqonaysaa sida biyahaas oo kale haddaad noqotid qof meeshiisa aan ka dhaqaaqin oo meeshiis ka fadhiyo meeshiis taagan waxaad ahanaysaa sida biyahaas oo kale inaa waa qurmaysaa calaashan waa uraysaa dadkoo dhanna way kaa kala cararayaan oo kaa kala yaacaan qof kusoo dhawaanayo xitaa xaaladaada ku weydiinaya ma jiri doono laakiin haddaad noqotid qof dhaqaaqayo waxaa lagu weydiin doonaa xaaladaada saad u socotid saad wax u qabatid saad yacni noloshaada meeshay marayso ayaa lagu weydiin doonaa marka aan noqon sida biyahaas oo kale oo warta iska dhex yaala oo qurmay oo shiiray noqo qof caraf badan dhaqaaq leh qof raba noloshiisu inuu meel kasoo saaro dantiisana uu caddahay waa wada ogsoonnahay dhammaanteenaba waxaan jecelnahay noloshaan maanta inaan guul ka gaarno waxaan ku taameynaa riyooyin badan riyooyinkeena iyo hamiga nolosha aan ka leenahay maskaxdeena ka dhex guuxaya waxaan ku gaari karnaa inaan cabsida iska saarno dambeyn wax waliba waad noqon kartaa wax walibana waad samayn kartaa bas cabsidu iska saar noqo qof dhiiran geysi ah noloshaada hamigaad ka leedahay waad gaari doontaa insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.